ahaan inay horta ka shaqeyno wax kasta oo doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada suurtagelinaya inay qabsoodaan xeerarka xuseeya qodobada isaga ah aynu xag hore soo marino in badan baa ummadda ugu aaminsanay ama laga dhaadhiciyey golaha uu qayb ka yahay mushkiladaha dib u dhacyada ku keena doorashooyinka taasoo sababaan inta badan muran iyo khilaafaad siyaasadeed oo xisbiyada qaranka u dhexeeya balse aan wakiilada iyo guurtoodana aanay shaqo ku lahayn muranada dib u dhacyada ku keena doorashooyinka waxaa haddana baxday oo bulshada iyo mujtamaca la gaadhay in xeerarkii doorashooyinka lagu geli lahaa ay qabiyo wanaagyihiin waxaa idiin soo jeedin lahaa ugu horreyn in dhammaan qodobada halka ku jira ama xeerarka halka ku jira ee doorashooyinka xuseeya ay xag hore soo marino wixii kale ka maqanee doorashada la xidhiidha aan ku soo daro ajenduhu u ahaado mid saaxadda doorashooyinka dalka ku qotoma oo diyaarinaya ugu horreyn qodobka koowaad ee xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha halkiisa ku jiraya waxaana jeclay in ka dhigo qodobka koowaad qodobka labaadna waxaa ka dhigaa wax ka bedelka iyo kaabista xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda oo isaguna qodob muhiima ah xilligana loo baahan yahay waynu ognahay doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo ururada iyo xisbiyadu 10 sano waxaa marka isku lamaanaya waxaan moodaa haddii imika la qabto doorashada golayaasha deegaanka inay 2022 ku beegantay 10 sano xisbiyadu dhammaan lahaa sidaa daraaddeed xeerkaasi waxa uu muhiim u yahay inaynu ajendahan fadhigan ku ansixino wax ka bedelay kaabida lagu sameeyo oo aynu samayno xisbiyadii iyo ururadii oo aan tartan golayaal deegaan ku jirin in xilligoodii 2022 ay qabsadaan xilligii ay ku beegnaayeen taasna xeerkaas ay ku sameeyeen oo wax ka bedelay kaabida ku samayno marka waxaa soo jeedi lahaa in qodobka labaad ee ajendaha laga dhigo xeerka wax ka bedelka iyo kaabista xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda qodobka saddexaad waxaa soo rari lahaa xeerka saxaafadda muran badan baa jira saxaafadda waxaan malanayaa ajendayaashii ugu dambeeyey golaha jiray inay tobangaadayaan kalfadhiya soo dhaafay 10kii kalfadhiya ee ugu dambeeyeyba ay ku jirtay xeerka saxaafadda haddana weli golaha kuma hori karno lama horkeenin waxaan rajeynayaa sida ninka gaarka ku jiro iyadoo ajendayaashii ka horreeyey lagama saarayba haddii lagu soo celiyo waxay macnaheedu tahay in golaha yaalo wasaaradii laga soo celiyey marka waxaan dardar gelin lahaa shirkado kale codsan lahaa inay qodobka saddexaadka ka dhigaan guddigii gacanta ku haysaya ay arrimaha bulshada ay golweynaha hor keento xeerka saxaafadda oo baahi weyn loo qabo qodobka afraad waxaa ka dhigi lahaa wax ka bedelka xeerka shaqaalaha rayidka weliba qodobka labaad ee lagu qoran ka afraad baan gelin lahaa waxaa qodobka shanaad ka dhigi lahaa oo soo raraya arrimo badan oo jira daraaddeed qabiil-qoraalka xeerka saaminta shidaalka iyo qabiil-qoraalka xeerka dakhliga shidaalka waxaa kaloo ka maqan qabiil-qoraalka muxuu ahaa xeerkii tamarta oo isaguna qodobka 8aada marka waxaa lagu lahaa saddexdaa qodob marka lagu daro waa 7 xeer bay noqonaya kalfadhigana afartaa xeer ugu horreeya saddexdaa xeer ugu horreeya arrimaha doorashooyinka xuseeya iyo xeerka shaqaalaha rayidka xeerka saxaafadda iyo labada xeer ee macdanta iyo tamarta shidaalka iyo tamarta aynu ajendaha kalfadhigan ku ekaano mar labaadna waxaan golaha ka codsanayaa u soo jeedinayaa in laga dareemo ummaddu dareento iyo asxaabta siyaasadduba in kalfadhigan loogu gogol xaalayo dalka sida ay doorashadu ugu qabsoomi lahaayeen